barasaabka gobolka saaxil ee Dr. Axmed Maxamed Xaashi oo toddobaadkan wargeyska dawan ugu warramay xafiiskiisa magaalada Berbera ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee gobolkaasi ee dhinacyada nabadgelyada horumarka iyo dhaqan-dhaqaale. Dr. Axmed Maxamed Xaashi waxa uu sheegay in boqolkiiba 95 mashaariicda kala duwaneed ee ay xukuumaddu u qorshaysay in sanadkani laga fuliyo gobolkaasi la dhammaystiray iyadoo ay qaar ka mid ah mashaariicdaasina ay weli socdaan. barasaabku waxa kale oo uu sheegay in wax soo saarkii dhinaca beeraha ee gobolkaasi ay saameyn ku yeesheen roobabka oo aad u yaraa sanadkani iyo weliba ayax ku habsaday deegaamadii uu roobku ka da'ay oo markaasi saameyn u geystay dalagii beeraha. haddaba waraysiga guddoomiyaha ayaa ugu horreyn waxaa lagu weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo guud ahaan xaaladda gobolka waxaanu ku jawaabay sida tani. dhammaan gobolka saaka oo khamiisa dhammaan degmooyinka waa noo wada hadalnay wax dhibaato ah iyo wax mushkilado jiraan ma jiraan nabadgelyahaan waanu fiicnay boqolkiiba dhammaan laamaha dowladda wasaaradaha laamaha halkan jooga gobolkana mid kastaba haddii caafimaadka tahay haddii waxbarashada tahay haddii kuwa kale tahayba mid waliba sidii loogu talagalay shaqadeedu u socotaa kulli waxa weeye xilli kuleylkii baanu ku jirnaa si dabayaaqa ah waxa weeye saameyn bay ku yeelataa shaqada gobolka dhexdiisa kuleylkaas sababtoo ah dee dadku way xagaa baxaan oo waxay tagaan meelaha toobkooda tagaan laakiin annaga dhammaan shaqooyinkeena si fiican loo socdaan wax dhibaatana ma jiro in yaroo shalay toole galabtii halkan tuuladan loo xigta ee dhinaca laga xigta galbeedka waxaa ka da'ay roob dabayl wata oon dhibic badan lahayn laakiin roobkaasi xoogaa khasaaro u geystay bulshadii deganeyd halkaas wax dadahoo ku dhintay ma jiraan laakiin xoolaha dhowr neef oo xoolaa ilaa 4 neef baa lanoo sheegay markii aanu meesha ugu tagnay waa lasoo sheegay waxaa kaloo oo lasoo sheegay oo ay soo arkeen labadii aan laga diray ilaa 13 dhisme oo uu ku jiro iskuul iyo meeshii feedhinka loo geliyey oo ay jiingadda dabayshu midba inay ka qaadayba ay ka qaadeen taana waxa weeye dadkeena waa loo tegey wixii kale dee loo qaban karayana waa la sii eegi doonaa haddii la yidhaah ilaa iminkana xaaladda gobolku saasay nabadgelyo tahay waa iska fiican. dhowaan waxaad gobollada degmooyinka gobolkaad safar ku baxdeen dhinacan bariga iyo dhinaca galbeedkaba saan odayna waliba bariga ayaad ku marayseen meelo badan oo sin ognahayna dhulka xeebtu xilliyada maadaama lagu jiro xilliga xagaaga kuleelku si aad buu jiraa marka xaaladaad xaa kala soo kulanteen degmooyinka dhinaca bariga iyo ku galbeedka kormeerkan ma baxna wuxuu ahaa kii sanadlaha ah sanadlaha markay sanadku dhammaado ama dhidhow yahay kulley miisaaniyadda ama dowladda dhexaha lagu daro ama dowladaha hoose miisaaniyaddooda ha ku darsadaane waxa weeyaan waa xilli qorshihii loo diyaargaroobaya marka waxaanu soo ogaanaynay oonu u soconay oonu tuulo u tagnay baahida jirta iminka ee u baahan in laga qabto ayaanu u tagnay runtii xog fiicanna waanu ka soconay golaha deegaankuna kalfadhigooda iyo iminka ku beegan miisaaniyadda tijo ay ku darsan doonaan wixii ay awoodaan wixii kalena waxa weeyaan ee dheeraad noqdana kulley waxaanu ugu talagalnay inaan wasaaradda walba wixii ka khuseeya siino marka qorshayaasha iyo xoogaal noqosho xaaladda dhabta ah ee gobolka dhexdiisa awgeed baanu tagnay oonu doonayna inaanu wax ka ogaano. wuxuu ahaa kormeer sanadlaha dabcan haa maxaa ugu mudan ama ugu muhiimsan haddii ay jiraan caqabado ama dhibaatooyin marka laga kormeerkii sanadkii hore ama sanadkii horaantiisiiba la sameeyey maxaa laga qabtay tusaale ahaan degmooyinkan aad marteen hadaad qodob laba wax nooga taaban karto. sanadkii hore wixii baahiye la ogaaday wax fara badan baa fulay wax laga qabtay wixii dambe ee imanka taagan waxaan culayska saaraynay meeshu waa dhul kuleylo ah ama xeeba sida arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha ayaan culayska saaraynay waanu doonaynaa inay de mar hadday meeshu xeeb tahay in muxuu ahaye dee aana biyalaani ka dhicina laakiin sida dhaqsahale wixii wax looga qaban karo culayskaygu ugu yaro kuwaasu taagtay. xagga galbeedka markaynu eegno gudoomiye waxaad iga warantaa sanadka roobka aad u yaraayeen cuntada soo baxdeen aad u yaraayeen dhul gobolkana qaybo badan waxaa jira beeralaya
ha u badnaadeen dhinacan fursa ama galbeedka noqdeen dhulkaad marayseen xaaladii dhinaca wax soo saarka beeraha iyo xaggii cuntada iyo weliba xaggii xoolaha maxaad kala kulantaa horta beeralayda waxaa ugu badnaa ayax baa sanadkan roobkana ku yaraa intii roobka helana ayax ayaa beeray ka cunay marka xukuumaddu waxay ugu tala gashay in kuwa raashinadan ay haydaha ugu soo dhigtay dadku tuulooyinka ku qaataan ama lacag ahaan lagu siiyo ama raashin ahaan lagu geeyey in dhinaca raashinada laga kabo marka way jiraan waanu siinaa waana jirtaa inay tuulooyinka dadku kulli xoolii baa ka yaraaday marka sidii hore maaha ama beer roqoto ama yuu qodanine kulliba taageero way u baahan dadku maradii xoolo ka yaraadeen marka xukuumaddu kuwa kulliba taageerada in raashin loo fidiyo waa la siiyaa badankooda imanka WFP oo kale tuulooyinka ugu badan iyadaa wax siisa oo ay dee qorshe ku siiso gobol walba way ka jirtaa taasi waxaa noo dheer inaanu qaar gaagaaban oo 3 iyo 6 bilood iyo waxaa soconaya alminta kalena kolba qaybta ay gaadho ka siiyo wada shaqaynta golaha deegaan baa la doortay oo cusub kulida mayrku kasoo cusub golihii hore yahay oo aan la odhan karin way soo cusub haddana wada shaqaynta golaha deegaanka cusub iyo xafiiska gobolka waasi golaha deegaanka wada shaqaynta iyadu way fiican tahay iyaguna wax weeyaan dad waaweyn oo mas-uuliyiin ay u badan yihiin gobolka saaxil dadka u soo baxay golaha deegaanka marka lays dooranayo dadku way tartami karaan laakiin doorashadu markay dhacday wixii ka dambeeyey wax xasaasada iyo wax maamul xumo ah ama wax isku diidan yihiin oo soo baxay ma jiro wada shaqayntu halkaasi aad u fiican tahay xaggayga iyo iyaga dhexdooda waxaa jirta deegaamada qaarkood golihii hore marka xilligeedii waxaa noqotay ee dhul badan oo marno gobolka ka mid ah dadku waxay cabasho ka muujiyaan dadka la doorta kuma soo noqdaan hadda golo deegaanka iyo hadda golo wakiilaba tahay haddii baynu ka soo qaadno dhinaca degmada ama golaha deegaanka ee degmada berbera intee in leeg bad xafiis maamul ahaan diyaar u tihiin inaad ku daba gashaan maadaama dowladdii dhexeeda ku tihiin wasaaradda arrimaha gudaha ka shaqaan qaadanaysaan intee leeg bad diyaar u tihiin inaad ku daba gashaan kula socotaan oo aad yani kula xisaabtantaan inay bulshadii iyo deegaamadii laga soo doortay dib ugu noqdaan oo wixii waxqabad ay u baahan yihiin markaa ay kaga jawaabaan marka gobol la joogo arrimaha gudaha gobol ahaan waxaa ku sarreeya barasaabka haddii aan aniga ahay oo barasaabka iyo hadday tahay wasaaraddaba waxa weeyaan waxa lagu shaqeeya waa xeer oo lagu maamula xeerkuna kala sarreynta sida loo kala sarreeyo uu dhigaya marka waxaan ku shaqeynaa isku maamulna waa xeerka iyaguna kama leexan karaan annaguna hadday muxuu ahay waxa weeyaan waxaan ku ilaalina waa xeerkooda marka controlka uu jiraya mar walba xeerkoodaasna waa ku shaqeynaya marka tusaalahaan muddo kooban joogeen laakiin idinku diyaar waxaa u tihiin inaad mar walba ku daba gashaan oo qiimaysaan sida ula shaqeynayaan bulshadii iyo dadka soo doortay markuu qofka xildhibaan la soo doortay yahay ama xubin golaha deegaanka ka tirsan oo la soo doortay yahay waxa weeyaan marka horeba isagu wuxuu garanayaa wixii loo soo doortay annaguna waxa weeyaan shaqadooda ayuu baan ku ilaalina marka la xisaabtanku sidiisaba waa caadi xukuumad ahaan waxa weeyaan sida jarajarada sida loo kala sareeyo waa la isku maamulaa golaha deegaanka oo dhan waxaa hogaamiya marka koowaad maayirka marka labaad barasaabka marka saddexaad arrimaha gudaha ayaa loo gudbaa xarunta dhexe markaas gudoomiyaha gobolka saaxil ugu dambeyntii xaaladda magaalada berbera ee joogno waa kobcaysa bal ka waran dhinaca adeegyada bulshada oo magaaladu hore gaadiidkan isu socda ee magaalada kala gooshan may lahayn oo magaalo soo kuraysa tid baa ka shaqayn jirtay maxaa magaalada kusoo kordhay dhinaca nabadgelyada iyo saldhigyada booliska iyo howlaha ka horreeya tid kama shaqaysa horta magaalada berbera waa xeebo kamana shaqayn karto gobolkana waxa weeyaan gobol imanka ballaadhay horumar weyn ka socdo mashaariic fara badanna ka socoto shaqo badanna ka socoto shaqada kiruwa dhowrka wadada hargeysa iyo isku xidha hargeysa iyo berbera oo kale dee shaqooyin baa ka socotaa meel fiicanna way maraysaa waad ogtahay waxaa kaloo jira dekelada lafteeda waatii xadhigga laga jaray oo la balaariyey airportkii dhawaan waa la furi doonaa freesonka isagana hawshiisi way socotaa oo waad ogtahay marka marba marka dambeysa wax way soo kordhayaan mashaariicduna way soo badanaysaa horumarkuna wuu sii kordhayaa marba marka dambeysa
marka dee heerkay maanta maraysaa waxa weeye waa la isla jaan qaaday weeye hadday dhinaca degmada tahay iyo hadday dhinaca gobolka guud ahaanba tahayba horumarku si fiican buu uga socdaa. mashaariicda intaad gobolka joogtay balasaabka ahayd fulay ee xukuumaddu ay fulisay maxaad ku qiyaasi lahayd horumarka yani gobolka laga fuliyey intee leegu gaaray boqolkiiba tirhaan intaad ku qiyaasi kartaa ama aad kuga sheegi kartaa? waxa weeye de qodobada iminka isugu taagi karno oo inaynu waxay u baahan tahay inaynu liiskii dooranno laakiin guud ahaan waxaan kuu sheegayaa inay boqolkiiba 95 inay fuleen mashaariicdii loogu talagalay inay socoto. Qaadee daba dheeraanayo ilaa imika socdo dee waqtigoodu ka dheer yihiinna way jiraan wixii laakiin loogu talagalay in sanadka gudihiisa lagu qabto way fuleen intii badan. inta badan waxaa la yidhahdaa balasaabada gobolladu waxay hostage ama yani u yihiin mar walba inay la shaqeeyaan oo hogaamiya dowladaha hoose hogaamiyaashooda yani waxaan uga jeedaa balasaabku maadaama aanu joogin resource ama dhaqaale buuran leh xagga dowladaha hoosena iyo hay-ado ka awood badan arrintaasi maxaa iska bedelay awood intee leeg baad u leedahay adigoo hay-addii fulinta ee dowladda dhexe ka mas-uula? waxaan ka soo shaqeeyey 4 gobol selel iyo muxuu ahaa Oodweyne iyo Caynaba iyo qalabkii Akaara dee anigu maan arag meel anigu maamulayo maan arag laakiin waxa weeyaan dee wixii dacayadahee sheegaya waa halkeeda adigu laakiin anagu ma hayno warka. aad iyo aad baad mahadsan tahay balasaabka gobolka Saaxil.